سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أخيارتين dhegeysanaysa ku soo dhawaada warka warbaahinta bandhiga qodobada warkaan idinku waynana waxa ka mid noqonaya waare oo xabsi guri la geliyay iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya golaha shacabka oo wada qorshe howleed ku qotama muddo kororsi Kenya oo farabaan ku haysa Soomaaliya iyo askari dilay oo isaguna la dilay intaasi waxa yaayeen qodobadii wararka warbaahinta bandhiga ugu door corona haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan waare ayaa waxa lagu soo waramayaa in xabsi guri la geliyay kadib markii ay soo ifbaxeen warar ku aadan in madaxweyne waare oo istiqaaladii madaxtinimo iska wareejiyay ayaa waxaa durbaba soo yeedhay in waare xabsi lagu ubsaday kaasi oo ah xabsi guri lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysa xariga madaxweynihii hore ee Hirshabelle madaxweyne waare dadka taxliiliya siyaasadda waxa ay markaasi ku macneeyeen in looga dan leeyahay xaalad siyaasadeed iyada oo laga cabsi qabo in qalalaaso ka kiciyo doorashada madaxtinimo ee Hirshabelle maadaama beesha uu ka soo jeedo heeb ahaan ay iyadu tahay beel inta badan diidan dhismaha maamulka Hirshabelle lama oga sida uu xaalka isku bedeli doono inkastoo haatan ay soconayaan sidii markaasi doorasho ay uga dhici lahayd Hirshabelle waxaana ololahaasi ka qayb qaadanaya dad badan oo ku sugan deegaanada dhaca Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle oo ah halka la isugu tagay isla markaana doorashada la filayo inay ka dhacdo golaha shacabka ayaa waxay wadaan qorshe howleed ku qotoma muddo kororsi mas'uulka ugu sareeya baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ololahaasi uu isagu wado isla markaana uu doonayo in muddo kororsi loo sameeyo isagoo ka ambaqaadaya haddii uu dib u dhac ku yimaado doorashada dalka isla mar ahaantaana baarlamaan bedela la waayo hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya laga soo warinayo ayaa dad badan waxa ay iska weydiinayaan sababta ka dambeysa maadaama weli uusan idlaan muddo xileedka golaha shacabka ee haatan wadanka ka jira si kastaba ahaatee waxaa markaa hadalkani uu soo yeeray dhawaan iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyana uu wado qorshahaasi ku qotoma in loo kordhiyo muddada xilka uu hayo maadaama uu isagu xilka uu qabtay xilli markaa aan sidaasi u sii dheereen dalka Soomaaliya ayaa wajahaya doorasho iyadoo doorashadaasina dad badan ay shaki geliyeen waxaana xusid mudan intaasi aawadeed ay markaa inta badan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda ay ka hadlayaan arrimo ku saleysan muddo kororsi iyadoo dawladda haatan uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu dhawaan markaa soo yiglaalay ra'iisul wasaare cusub iyo gole wasiiro taasi oo dad badan shaki gelisay in markaa dib u dhac uu ku iman doono doorashada dawladana markaa loo sii kordhin doono muddo xileedkeeda Kenya waxa ay farabaan ku haysaa Soomaaliya dawladda dalka Kenya ayaa waxa ay farabaan ku haysaa shacabka Soomaaliyeed ee gedo ku dhaqan iyada oo weli markaa ay xidhan tahay xadka kala qaybiya labada dal waana Soomaaliya iyo Kenya shacabka ku nool gobolka Gedo ayaa waxay cabasho balaadhan ka soo jeediyeen arrimahaasi inkastoo weli la laayahay cid dhag jalaq u siisa qaar ka mid ah ganacsatada kalluunka u iibgeysa ama u iibgeyn jirtay oo gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa codsaday in dawladda Soomaaliya ay soo farageliso xaaladaha ka taagan Gedo isla mar ahaantaana ay qayb ka qaadato oo sidii loo furi lahaa xadka kala qaybiya labada dal Soomaaliya iyo Kenya oo isagu muddadan xidhan ugu dambeynna askari dilay oo isaguna xal dilay dhacdadan ayaa waxay ka dhacday gobolka Bay gaar ahaan degmada Buur-Hakaba dilka ayaa waxa uu yimid kadib markii ay murmeen labada askari kadibna mid ka mid ah uu aad u carooday durbadiina rasaas uu ku furay askarigii kale ee geeriyooday ama la dilay falka kadib
ayaa askarigii dil ka geystay waxa uu isku dayay in uu goobta ka baxsado walow markii uu cararay ay rasaas ku fureen ciidamo meesha ka ag dhowaa islamarkaana halkaas uu ku quurbaxay. dilka kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray saraakiil kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo ay shaaciyeen in hadda xaaladda ay degan tahay isla mar ahaantaana ciidamo kala duwan oo ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay bilaabeen sidii ay xasarada u dejin lahaayeen maadaama laba ruux oo muran dhex maray ay dhacday in mid ka mid ah halka lagu dilo halka midkii dilayna uusan baxsan oo askartii iyagu ay ku fuliyeen falkii lagula fulin lahaa maxkamadda. warka oo aad ka daawanayseen warbaahinta bandhiga akhyaarta aynu jecelnahay waa inaga intaa. warka waxaa idiin soo saaray anigoo Ibraahim Sheekh Xuseen sheekaya saaxiibkay Zaad ayaa farsameynaya. nabadgelyo.